wuxuu ina leeyahay islaamku waa tararka dunida socanka maaha aqoon-yahankoodii taariikhda baadhayna wuxuu leeyahay waaritaanka islaamku wuxuu amal u yahay wuxuu rajo u yahay buu tilmaamaya bini aadamnimada waxa nebi maxamed muslim ka sheegay waxaan rabaa inaan ka tago waayo ummad waliba geesigeeda iyo batalkeeda iyo nebigeeda dee waa ammaanataa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan markaasi dee waa dadkii rumaysanaa oo ammaanaya waxaan isku dayayaa waxa aan soo qaataa inay u bataan kadib baan qur-aanka dib ugu noqon haddii alla yidhaahdo laakiin waxaan isku dayayaa waxaan soo qaadanayaa inuu u bato waxay aqoon-yahankooda qoreen weliba waxaan horraysiin doonaa kuwa kriteeriyada qoray aqoon-yahanka qaar reer galbeedka ah oo nebi maxamed wax ka qoray noloshiisa qayb ka mida intay qoreen bay ammaaneen ama tacaabiir duuduuba bay ka sheegeen aqoon-yahanka qaarna iyagoo bini aadamka qiimaynayay waxay dejiyeen marka hore kriteeriya wax lagu qiimeeyo yacnii qofka bini aadamka aynu odhan karno waa qaa'id ama waa hoggaamiye ama waa mudan yahay waa qofka maxay qabta bay marka hore isweydiiyeen dabeetana kriteeriyay qoreen qofku waa inuu sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaa yeeshaa markay kriteeriyada dhammeeyeen kadib ayay waxay yidhahdeen bini aadamka aan ku tabaqna haddaba yaa leh sifooyinkaa inta kriteeriyada qortay aan wax ka soo qaadaya dhammaantood waxay tilmaamayaan nebi maxamed inuu yahay kuwa ugu mudane kriteeriyada bini aadamka lagu qiimayn kara wata aan dhowr qof markaa soo qaado waxaan idiin soo qaadi doonaa lamartin alfonso lamartin iyo messerman julius messerman iyo michael hart iyo professor ro krishna waa afar dunida ka kala tirsan mid waa hindi midna waa yahuudi maraykan iyo reer yurub waa dad kala gedisan waxay isweydiiyeen marka koowaad bini aadamka maxaa lagu qiimeeyaa marka la qiimaynayo la maamusayo laleeyahay qofkani waa halyeey maxaa lagu qiimeeyaa cumuuman bini aadamku wuxuu yidhaahdaa saddex shay baa wax lagu qiimeeyaa ama alcadama weynida bay leeyihin qof leeyahay saddex shay baa lagu qiimayn karaa kow biاطibaaci wاlakhlaaqi wاlmazaaya shakhsiya waxa lagu qiimayn karaa bay leeyihin sifaadka bini aadamnimo ee waa geesi waa deeqsi waa caynka yacni sifaadka qofka bini aadamkaa insaaniyadu ay leedahay waa lagu qiimayn karaa bay yidhaahdaan waxaa kaloo bini aadamka lagu qiimeeyaa bay yidhaahdaan injaasaadka alacmaal alcadiima waxqabadka ummad buu badbaadiyey waxaasuu qabtay waxaasuu keenay waxqabadkiisa waa lagu qiimayn karaa waxa saddexaad ee bini aadamka lagu qiimeeyaa waxa weeyaan bay yidhahdeen raadka uu bini aadamnimada kaga tegey intee qarni buu raadeeyey ma bulshadii uu la noolaa iyo qarnigii uu noolaayo qura qof raadayn kule buu ahaa mise taariikhda bini aadamka ee soo jireenkaa qof ku leh raadayn waa aahaar waa saddex qaybood oo wax loo qiimayn kara bay leeyihin in dhaqanka iyo akhlaaqda iyo miisaadka insaaniga lagu qiimeeyo in waxqabadka iyo acmaasha ka soo fushay lagu qiimeeyo iyo in raadku bini aadamnimada kaga tegey lagu qiimeeyo saddexda kaad ku qiimaysa bay leeyihin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one waxay yidhaahdaan cadamada marka la qiimaynayo dadka badh qoom buu weynida u yahay laakiin waxaa laga yaabaa qadarka uu kuwan wax u taray kuwo kalena inuu dhibay maalan dagaalyahannada nin baa dagaalyahannimo lagu qiimeeyey dee qoomkiisa wuu u guuleeyey laakiin qaar kale uu jebiyey baa jira bini aadamka o dhan wax ma wada tarine qaarna wuu u hiiliyey qaarna wuu ka hiiliyey waxaa jira bay dhahaan biniaadamnimada marka la qiimaynayo inay maxalli tahay raadayntiisa ama waxqabadkiisu inuu gobol ku kooban yahay qowmiyad min alqowmiyat inuu wax taray iyo inay tahay international adduunkao dhan inuu wax taray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihin biayi miqyaas aad wax ku qiimayso bashariyada dhammaanteed buu wax taray sida awgeed
haddii akhlaaq iyo dhaqan la rabo bay leeyihin waa qof taariikhdu ay tilmaamayso inuu mutawaadic ahaa oo geesi ahaa dagaalyahan ahaa wax bixin jiray dulqaad badnaa sabir badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu tilmaamoo dhan saadiq ahaa iyo runsheeg badnaa ballan oofin badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu maamuusa bay leeyihin waa looga markhaati inuu lahaa hadday tahay raadayn waxay leeyihin caalamka ilaa maantay taallaa raadayntiisii oo wakhtiguu nebi moxamed yimi calayhi salaatu wasalaam wakhti aan laa xuquuqulinsaan walaa xuquuqulbini aadam walaa wax jira aanay jirin bay ahayd markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xajatulwidaac uu tilmaamayay bini aadamka iyo maamuusnimadiisa iyo xurmada uu leeyahy aahaartu ka tegey bay leeyihin waa ta abuurtay xadaaradan dee islaamigaa dhammaanteed iyo dadka muslimiin ee dunida soo jiroo dhan sida awgeed ayi miqyaas wax lagu qiimeeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number 1